soo dhawaad saaxiibayaal kubadda cagta maanta waxyaabaha ugu xiisaha badan la hadalhayo ayaan soo qaadan doonaa muuqaalkan iyadoo warbixino kala duwan aan ku soo qaadan doono sheekooyinka. Waxaan ugu horeyn doonaa maxaad kala socotaa tababaraha Manchester imaan doono xilligan oo kooxdiisa soo leeliyay kulankiisii ugu dambeeyay guusha ay gaareen Sporting Lisbon. Sheekooyinkan waxaan ku bilaabi doonaa Jose Mourinho oo aad u amaanay macalinka Manchester xilligan ay u dhowdahay. Hogaamiyahan Amran lagu magacaabo ayaa heshiis la gaaray kooxda United-ka xilli uu ku dhawaaday kooxo badan Ingiriis inuu macallin u noqdo sida West Ham iyo Liverpool. Mow ayaa wax badan laga weydiiyay macalinkan. Waxay la tahay inuu haysto awood uu kaga noqon karo macallin horyaal kasta. Wuxuu leeyahay kalsooni ku noqon kara tababaraha koox kasta ayuu yiri. Go'aan isaga iska leh halka uu doonayo ayuu ka shaqeyn karaa. Amran wuxuu shaqadiisa ugu horeysay tababar ka bilaabay kooxda reer Portugal Casa Pia bila kadib markuu casharo siiyay Jose Mourinho 2018. Marka Mow aad ayuu amaanay macalinkan. Wuxuu leeyahay waa mid awood u leh koox walba inuu maamulo. Dhinaca kale Rodri ayaa markii ugu horeysay ka hadlay go'aanka Vini ee Real Madrid ku saabsan inaysan ka soo qayb galin xafladda Ballon d'Or. Rodri wuxuu yiri go'aanka ayaa iska leh may doonin inay halkan yimaadaan sababa jira awgood. Waan dareemi karaa ayuu yiri. Aniga waxaan diirada saarayaa kooxdayda iyo ciyaartoyda ila joogta iyo dadka halka aan ku sugan ee ku faraxsan kuwa ii hambalyeynaya. Isagoo ka hadlay shirka jaraa'idka rasmiga ah ee xafladda, Rodri ku guuleysiga Ballon d'Or waa wax aan weligay ku fikiri jirin. Riideedu waxay ahayd inaan ka ciyaaro heerka koowaad Spain iyo kubadda cagta. Weligeena ma maleyn waxyaabahan oo kale. Rodri oo la yimid xafladda biraha lagu boodo ayaa haatan dhaawac uga maqan dhaawac ka soo gaaray ACL-ka inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Ten Hag mar haddii shaqadii laga raacadeeyay afka ayuu furtay. Tababarihii hore Manchester ayaa la sheegay in loo diiday in la soo saxiixdo 4 ciyaartoy oo muhiim ah. Ten Hag ayaa la ceeriyay Isniintii kadib guuldaradii West Ham. Kaliya guushii finaalka FA Cup-ka ee garaaceen City ayaa badbaadisay shaqadiisa xilli ciyaareedkii hore. Inkastoo United uu ku dhameysatay kaalinta 8aad balse sanadkan fursad muusan u helin inuu sii joogo. In lacag badan lagu geliyo Casemiro, Mount, weeraryahanna aan la tijaabin sida Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee ayaa sidoo kale si fiican aan loo soo dhaweyn. Inkastoo kooxdu ay haysatay miisaaniyad ay suuq ku kharash garayaan haddana waxaa soo baxay in Ten Hag loo diiday fursado ciyaartoy ku soo qaadan kara. Ten Hag ayaa la soo shaqeeyay De Jong iyo ciyaartoy badan. ESPN ayaa sheegtay Ten Hag in loo sheegay in bartilmaameedkiisa ay ahaayeen kuwa aan macquul ahayn sida Rodrigo Valverde, Alex McAllister, Van de Jong iyo kabtanka Ingiriiska Harry Kane. Intaas ayuu dalbaday laakiin wuxuu leeyahay intaasba la iima keenin. Fashilkan sidaa ayaa qayb ka ah. Dhinaca kale tababaraha Arsenal Mikel Arteta wuxuu ka warbixiyay xaaladda difaacyadiisa dhaawaca ku maqan oo dhaawac soo gaaray. Gabriel oo dhaawacmay jilibka horaantii qaybtii labaad kadib wuxuu isku dayay inuu ciyaarta sii wato laakiin ugu dambeyn wuxuu ku khasbanaaday inuu baxo. Brazilianka ayaa tan iyo markaas marayay baaritaan lagu qiimeynayo dhaawaciisa. Arteta ayaa yiri ma darna dhaawaciisa wuxuuna ka sahlan yahay intii aan filaynay. Gabriel mar walba u badneyd in loo ciyaaro kooxda yar ee Preston uma badneyn in loo ciyaaro kooxda yar tartanka caawa ciyaari doona Carabao Cup. Timber sidoo kale ayaa lagu qasbay inuu ka baxo kulanka Liverpool iyadoo ku dhawaad 15 daqiiqo ka harsantaa ciyaarta laakiin Arteta ayaa xaqiijiyay inuusan dhaawacmin. Gabriel Arteta wuxuu yiri weli waan qiimeynaynaa isaga wax xun uma eka dhaawaciisa. Arteta wuxuu ka yiri Julian wuxuu fiican yahay oo maqnaa in muddo uu daalnaa muusan sii wadan karin ciyaarta. Arsenal ayaa xilli ciyaareedkan waxaa soo gaaray dhaawac aad u daran gaar ahaan dhanka difaaca. Ricardo Calafiori, Timiyazu ayaa labaduba dhaawac jilibka ku maqan halka Kieran Tierney isna dhaawac muruq ah uu ku maqan yahay. Qoyinkan ayaa ah kuwa ugu waaweyn ciyaaraha saaxiibayaal adi ahaan qodobkii ku soo jiitay.